kulan wanaagsan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la sheegay in maalmaha soo socday uu tagayo furmaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee gobolada dalka waxaa la sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh uu booqan doono fadhiyada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin gobolada dalka halkan oo la sheegay inuu ka bilaabanayo mid kamid ah dagaaladii uu hore u iclaamiyay wararka aanu helin ayaa sheegay in madaxweynaha uu u tagi doono ciidanka iyo saraakiisha waxaana la sheegay in dardaaran iyo kulamo uu la qaadan doono wararku waxay intaasi ay ku darayaan in madaxweynaha markii uu booqdo furmaha dagaalka ciidanka uu kula hadli doono waxaana booqashada madaxweynaha la sheegay inay noqon doonto mid kamid ah gulufyadii ugu dambeeyay ee dowladda dhexe ee Soomaaliya ay wado inkastoo wararka qaar ay sheegayaan in madaxweynaha uu degayo furmaha qaar haddana warkan si rasmi ah looma hayo waxaase la ogyahay in madaxweynaha tiisa ay tahay booqasho ilaa ay haatan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hore u iclaamiyay in dagaal ka dhan ah argagixisada mar kale uu ka bilaabanayo gobolada dalka taas oo madaxweynaha uu hore u sheegay inuu yahay guluf kama dambeys ah oo argagixisada dalka looga saarayo wixii warar ah ay soo kordha halkan ayaad kala socon doontaan hadduu ay beedmo isbitaalka Amora Specialist waxa uu dalka keenay qalab casri ah oo adigoo aan qalin lagu marsin ama dawo lagu siin ayaa laga daaweynayaa hameeyirida ragga waxaan xaadir kugu ah isbitaalka dhaqaatiir PhD sidata oo 20 sano wax ka badan ka shaqeynayay cilmiga cudurrada ragga